السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu marar badan ka soo warranay fursadaha shaqo, nolol iyo waxbarasho ee ka jira dalal ku yaala qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Denmark iyo wixii la halmaala. waxaynu sidoo kale ka soo warranay fursadaha shaqo, nolol iyo waxbarasho ee ka jira dalka Mareykanka iyo Canada. sidaa darteed waxaa jira iyaguna arrimo kale oo muhiim ah oo run ahaantii muwaadinka raba dalalkaas mid ka mid ah iyo dalalka kale dunida ku yaalaba marka uu tago ka hor imanaysa isla markaana muhiim ay tahay in uu marka horeba sii ogaado. sabab waxay taasi muhiim u tahay oo run ahaantii mararka qaarkood ay keentaaba muwaadinkani marka uu dalalkaas mid ka mid ah uu tago isla markaana ay tahay markii ugu horreysay abid uu tago in caqabada ka hor timaada ee dhaqan ee laga yaabo abid inuusan arkin inay ku kalifto in uu isla markiiba qofkaasi dalkaas ka soo cararo. haddaba xaaladaha noocaas ah si muwaadinkaasi ama shakhsi kastoo inaga mid ah uu uga sii gaashaanto ayaa waxaa muhiim ah inaan ogaano caqabadaha muwaadinka ku cusub dalka Canada ka hor imanaya inagoo qodobayn doona. kulanti wanaagsan. haddii booqashadaadii koowaad ee channelkan ay tahay fadlan subscribe dheh. haddii akhyaarta nagu taxanaad ka mid tahayna wixii su'aalaad qabtid dhinaca hoose ee fariimaha ayaad nagula wadaagi kartaa. haddaba haddii aynu guda galno caqabadaha muwaadinka dalka Canada ku cusub inay u diyaar garoobo ayaa caqabada koowaad waxay tahay la qabsiga ama la qabsashada dhaqanka dalkaas. waayo markii muwaadin dalka Canada ku cusub aad tahay waxaa gebi ahaanba kugu cusboonaan doona dhaqamada ummadda halkaas ku nool, sida habka iyagu ay u kaftamaan, waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin ama ay neceb yihiin. sidoo kale inaad fahanto waxaa la yidhaahdo physical appearance ama mujaamalaadka ama luqatul jasad waxaa la yidhaahdo, taasoo haddii aadan fiiro gaar ah u yeelan ay fududaan doonto in dhagartooda aad lugaha la gasho. sidoo kale waxaa muhiim ah inuu qofku aad isaga ilaaliyo ballamaha markii uu yimaado dalka Canada. waayo waxaa laga yaabaa Afrika oo kale ama Soomaaliya oo kale markii aad joogtay in ballamaha markii dadka aad la gasho inaad soo daahdo 10 daqiiqo aad dib dhacdo, 1 saac dib dhacdo ama aad ka cudur daarato ballantii qofka aad la gashay inay wax sahlan kula tahay. taasi waa midda koowaad. caqabada labaad waxay tahay caqabada luqadeed. waxaa laga yaabaa dadka qaar ka mid ah inay isku qanciyaan inay luqadda Ingiriiska si fiican u yaqaanaan ama luqadda Faransiiska ay ku hadli karaan, balse waxaa muhiim ah inaad maanka ku haysid dal kastoo dunida ka mid ah marka laga reebo luqadaha internationalka lagu magacaabo in dal kasta ummadaas ku nooli ay leeyihiin luqad ama lahjad iyaga u gaar ah oo ay isticmaalaan, taasoo run ahaantii haddii aadan baranin luqadda ama lahjadda u gaarka ah Kanadiyaanka in ay kugu adkaan doonto in aad ummadaas ama bulshadaas aad dhex gasho, saasoo saameyn doonta fursadaha shaqo ee la rabay inaad heshid ama aad u hanqaltaagaysay inaad helishid. sidoo kale in aad heshid daryeelkii caafimaad ee aad u baahnayd, taasoo run ahaantii iyaduna caqabad weyn ku noqon doonta inaad samaysatid ama laba samaysid bulshooyinkaas Kanadiyaanka ah xiriiradii bulshadeed ee adiga muhiimka ku ahaan lahaa. caqabada saddexaad waxay tahay helitaanka shaqada. waxaa laga yaabaa dad badan ama oo run ahaantii dalka Canada aada in focuskooda ama ujeedkooda ugu weyni uu yahay in ay shaqo ka helaan, lagana yaabo inay isu arkaan inay yihiin dad ehel u ah in ay khibrad leeyihiin. haddaba waxaa dhacda mararka qaarkood markii dhaqamada dadkaas aadan aqoonin, sidoo kale luqadoodii aadan aqoonin, isla markaana laga yaabo inay kugu adkaatay in ummadaas aad isfahantaan, isla markaana hanqaltaagaagu ahaa adigu in aad fursad shaqo heshid, isla markaana laga yaabo in lagugu sheekeeyey in dalka Canada si fudud shaqada lagu helo, in caqabadaha bulshada ka hor yimid ay keento inaadan shaqo helin, taana ay horseed u noqoto niyad jab iyo run ahaantii hankaagii oo dhaawacma. taasi marka waxay noqon doontaa waxyaalaha la rabo muwaadinka dalka Canada ku cusub inuu u sii diyaar garoobo in ay keeni karto mararka qaarkood shahaadada aad wadatid ee aad islahayd dalkaaga qiimay ka lahayd oo caalamka haddii aad la tagtid
waxbay kuu goyn doontaa in loo arkaba in ay noqoto shahaadadaad wadatid mid aanan muctaraf ahayn oo aan la aqoonsanayn, ama ay lagu dhahaba annagu shahaadooyinka dalkayaga ee Canada ahaan ardada laga siiyo ama jaamacadaha ama ayankan adoo institutionka ku yaala shahaadooyinka ay bixiyaan kaliyan ictiraafsanahay, taasoo run ahaantii ku keenaysa adiga in ay caqabad weyn kugu noqoto oo aad ka talaabsan kari weydid. saadaradeed waxaa muhiim ah inaad maanka ku sii hayso shaqooyinkan markii aad raadsanayso waa gudaha dalka Canada in xirfadda aad sheegan doonto iyo shaqada aad sheegan doonto in cadaymahoodii marka horeba aad sii diyaarsatid. haddii taasi aysan dhicin ay noqon doonto caqabada saddexaad ka hor iman doonta markii dalka Canada isku daydid intaad tagtid inaad shaqo raadsato. caqabada afraad ee la rabo muwaadinka dalka Canada ku cusub inuu u diyaar garoobaa waxay tahay deganaanshiyaha, bimacnaa inuu helo qofku meel uu dego. waayo helitaanka inaad heshid meel ammaan ah oo aad ku noolaatid isla markaana aad ku heshid qiimo ku habboon ayaa waxay noqon doontaa caqabadaha ugu waaweyn ee dalka Canada markii aad tagtid aad la kulmi doontid, gaar ahaan waliba markii aad tirahdid waxaan rabaa inaan ku noolaado magaalooyinka waaweyn sida Toronto ama Frankfurt oo kale. waayo waxaynu ognahay magaalada ay ka weyn tahay in guriga ka helitaankoodu inuu yahay mid aad naadir u ah. waa marka labaad haddii aad caqabada ka gudubtid oo aad heshidna in qiimo sahlan aadan ku heli doontid, taasna ay ku sii wehelin doonto haddii aad hesho weeye in lagu weydiin doono referencigaaga ama tixraacaaga, xageed ka timid, xageed deganaan jirtay, xageed ka soo guurtay, maxaa caddayn u ah maxaad ka shaqayn jirtay. waxaasoo laga yaabo maadaama aad muwaadin ku cusub dalka Canada aad tahay in bataatanba aad haysanin, taasina marka ay kuu keeni doonto laba mid in ay kugu adkaato meel aad ku noolaato inaad hesho. waa midda koowaad. ama haddii aad hesho in maadaama loo jeedo inaadan haysanin cadaymo dalka gudihiisa inaad joogi jirta cadaynaya intaa looga faa'iidaysto in gurigii qiimihiisii aad lagugu sarraysiiyo oo meeshii tusaale ahaan $100 oo ahaa $300 lagaas lagu dhaho ku kirayso oo kale. waayo waxaan xasuustaa dalka Masar oo kale oo hadda Soomaalidu aad ay ugu qulqushay in gurigii $50 ahaa hadda $150 ama $100 ama $90 lagu kiraynayo. haddii loo arko inaad tahay qoys ballaaranna ayba kasii daran tahay oo gurigii $100 ahaa $300 hadda uu marayo. taasina marka waxay noqon doontaa caqabadaha la rabo muwaadinka dalka Canada ku cusub in uu usii diyaar garoobo. caqabada shanaad ee muwaadinka dalka Canada ku cusub la rabo inuu usii diyaar garoobo waxay tahay waxaa la yiraahdo al-uzla al-ijtimaaciya. waa darxumada iyo wehel la'aanta aad kala kulmi doonto gudaha dalka Canada, taasoo run ahaantii noqon doonta inay kugu adkaato inaad yeelato saaxiib rasmi ah oo aad ku kalsoonaan karto saaxiibku noqon doona. sidoo kale inaad dareento marka dalkaas Canada aad tagtid in aad waayi doonto qof aad wehel ka dhigato, qof arxan kuu noqda, qof kula taliyo kuu sheega waxyaalaha la rabo inaad kasii gaashaamato, waxyaalaha la rabo inaad kusii xisaabsanto. maankana ku haya waxa koowaad ee aad u baahan tahay markii qurbaha aad tagtid waxaa weeye walaalayaal, si fiican hadalka u fiirsada. waxa ugu horeeya ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay baa wuxuu yahay markii qurbaha aad tagtid in aad heshid qof ku kala taliya caqabadaha dalka gudihiisa ka qabsan kara. waayo Soomaaliya oo kale markaan tusaale u soo qaadano inaad aqoon jirtay ummad isku xiran, ummad isku naxariisata, ummad isu timaado isa salaanto is xiriirisa, ummad iska wardoonta inaad aqoon jirtay. laakiin markii aad qurbaha tagtid waxaad arki doontaa gebi ahaanba waxaas ka duwan. waxaad arki doontaa ummad wajiga intay kuu qurxiyaan adiga xilfaha kuu qaadi doona. waxaad la kulmi doontaa dad dhibaatadii ay la kulmeen iyagoo og aysan adi kaaga digaynoo sugaya in aad adiguna dhiiqadii iyo dhibaatadii iyo xanuunkii ay mareen aad adiguna soo taabatid. waxaad la kulmi doontaa dad
kaa hor istaagi doona in adigii fursadihii aad heshid oo waxaad kaloo la kulmi doontaa dad muuqaalkii Soomaaliyeed leh laakiin totally Soomaalinimo aan ahayn oo arxan aan ku noqon doonin oo aan saaxiib ku noqon doonin oo wehel aan ku noqon doonin sadaraadeed waxa la dhihi karo ugu muhiimsan markii aad tagtid qurbaha ayaa waxay tahay in aad heshid waxyaalaha adiga dhibaatada ku keeni doona qof kaala taliya sadaraadeed waxaynu leenahay markii qurbaha gaar ahaan Canada aad tagtid caqabadaha la rabo inaad u sii diyaar garoobtid baa waxa kamid ah inaad noqon doonto qof karantiilan oo qolka uu degan yahay kaliya la sheekaysta la saaxiiba waxaana dhici doonto arki doontaan in qof aad Soomaaliya ku taqaanay ama aad islayd Canada joogaayo ehel buu ku ahaa inaad la xiriirto adoo u baahan in uu un ka caawiyo tusaale markii maanta kale aad la hadashid in uu ku soo jawaabo 2 maalmood kadib ama 3 maalmood kadib ama 10 saacadood kadib adiguna xaalad cakiran aad ku jirtay sadaraadeed waxa muhiim ah in aad karantiilmi doonto oo adiga afarta darbi ee aad dhex seexato iyo adigu aad saaxiib noqon doontaan taana ay ku ififaaleynayso inaad kaliga isu tashan doontid oo saaxiib iyo adeer iyo walaal iyo arxan aad ku xisaabtami doonto inuusan jiri doonin taasina waa caqabada shanaad ee la rabo muwaadinka dalka Canada ku cusub inuu si diyaar garoobo caqabada lixaad ee la rabo muwaadinka dalka Canada ku cusub inuu diyaar garooba waxay tahay in uu fahmo nidaamka ka jira dalkaas waxaanu ognahay dalka Canada nidaamkiisa marka la fiiriyo gaar ahaan daryeelka caafimaadka iyo canshuuraha iyo waxbarashada iyo bangiyadu inaad fahantid waxay noqon doontaa mid aad kuugu adkaan doonta sidoo kale la tacaamulka ama la dhaqanka ee cadaymaha cadaynaya ama sugaya in aad soo martay tilaabooyinkii dawladeed ee sugayay waxaan aad haysatid ayaa iyaguna waxay noqon doonaa wax aad ugu wareeri doonto sida daraadeed waa inaad hadda u sii diyaar garowda in wax kasto arrimaha la xiriira in aad caqabada kaaga iman doonto aad maanka ku sii hayso caqabada toddobaad baa waxay tahay ku tarbiyeynta caruurta deegaan adiga kugu cusub waayo markaad Canada tagtay markii kugu horeysay aad tagtayna ay tahay waa dhul ama deegaan ama dal kugu cusub sadaraadeed waxa adkaan doonta mararka qaarkood nasiibku uu kugu saacido in aad fahanto dhaqamada asalka ah iyo waxyaalaha dadka Canadianka ah agtooda ku weyn adigoo isla markaana laga yaabo inaad fahmi kari weydo hanaanka ugu haboon ee ilmahaagu ay ku fayaqabi karaan dhaqan ahaan marka Canada aad tagtid sidoo kale waxa muhiim ah inaad maanka ku hayso in badana ay dhici karto maadaama caruurta wadii aad qof waalid oo caruur wata aad tahay caruurtaadu markii aad iskuulada u dirtid ama meelaha goobaha waxa lagu barta aad u dirtid ama bulshada ay dhex galaan in ay si fudud u baran karaan luqadii iyo dhaqankii dalka ka jiray laakiin adu aad noqotid qof ka xirxiran oo dhaqamadii aan fahmin taasi marka ay horseedo adiga iyo caruurtaadiiba dhaqan ahaan inaad isla markiiba dad ku kala fog aad noqotaan oo waayo ilmahaagi markii ilmihii kale uu la falgalo oo uu la dhaqmo oo waxyaalaha ay sameynayaan iyo meelaha ay aadayaan iyo sida ay u fikirayaan ay si fudud ula falgalaan adiguna gurigii aad ku egtahay oo dhaqamadaas iyo dadka intaas la eg aad dhexgelin waxay taasi keenaysaa ilmahaagi in ay taaqlum la sameeyaan bimacnaa inay takayuf la sameeyaan isla markiiba ay la qabsadaan oo ay la falgalaan caruurihii kale ee ay wax la baranayeen caruurihii kale ee fasalada ay la fadhiyeen caruurihii kale ee ay la ciyaarayeen laakiin adigu intaas aad helin taasina ilmihii iyo adigii isla markiiba in iska hortimaadaan oo ilmihii uu rabo inuu ciyaalkii kale favorite-koodii oo kale uu helo laakiin adigu aad haysan jirtay ilmo warya aad ku hayn jirtay oo banaanka aan loo ogolaan jirin oo garoomada aan loo kaxayn jirin oo inta la kaxeeyo suuqa aan la geyn jirin oo aan la soo cashaysiin jirin kaliya laakiin aad u la hor fadhin jirtay laakiin hadda ilmihii waxaasoo dhan ay ka xoroobeen taasina marka ay keento isla markiiba adigii iyo ilmahaagii inaad iska hortimaadaan adigoo waliba maanka ku haya in sharciyadii iyo meelihii loo mareeyay iyo habkii ilmaha loola tacaali jiray in aadan garanin ama sidoo kale inaad ahaydba hooyo ama aabe
أنا أتوا برنامج با ilmihiisa barbaarintiisa ilmihiisa korkoolintiisa ilmihiisa la ciyaarkiisa ilmihiisa waqti siintiisa inadan totally ba aadan ahayn ilmihina isla markiiba uu helay jawi uu la jaan qaadi karo waxyaalihii uu rabay ee loogu didi jiray dalkii kale markaad ku haysay uu halkan ka helay marka taasina ay noqoto caqabad aadan ka tilaabsan karin oo fududaynaysa adi ilmahaagi inaad laba qaarado dad kala jooga aad noqotaan marka taasina si isa u dhicin in waalidiintu Soomaaliyeed baan la hadlayaa in ay arrimahaas si gaar ah waliba ugu feejignaadaan caqabada sideedaad ayaa waxay tahay la qabsiga cimilada dalka Canada marka la eego cimiladiisu ama waqtiga xagaagiisu ama jiilaalkiisu waa waqti run ahaantii aad u dheer oo haddana aad u qabow taasoo shakhsiga ku cusub dalka Canada ay ku noqon doonto mid aad u adag oo run ahaantii uu la falgalo taasoo laga yaabo jirkiisu inuusan u diyaarsanayn naftiisu inaysan u diyaarsanayn cimiladii oo la noolaan jiray ee uu ka yimidna mid la mid ah aysan ahayn sidoo kale quusasho degdeg ah ay ku dhacdo la xiriirta cimiladan ay dhex yimaadeen taasina ay keento in dadka qaar inay xanuuno ku dhacaan in rheumatism uu ku dhaco in xataa cuntada uu cunayo ee ku haboon meelaha qabowga ay ka jiraan inuusan garan karin taasina ay keento caqabad muwaadinka ku cusub dalka Canada la kowsato uusan ka tilaabsan karin gabagabadii markaan soo koobno arrimahaas oo dhan waxaan uga hadlaynaa walaalayaal in qurbaha markii la tago gaar ahaan Soomaali markii la yahay ee qurbaha la tago in waji cusub aad la kulmi doontaan wajigaas cusub caqabadiisu wataa dhibaatooyinkiisu wataa in markastaba dhinaca wanaagsan aadan ka eegin waayo waxyaalaha aad ka xusida u mudan ayaa waxay tahay oo la rabo in maanka uu ku hayo muwaadinka Soomaaliyeed ee Canada ku noolaanaya ama raba hadda inuu ku noolaado ama processkiisii ku jira ama haddaba uu dhamaaday kaliya inuu taga ay u dhiman tahay la rabo inuu maanka ku hayaa waxay tahay war dadkii aad ka timid iyo dadka aad u socotid ee Soomaalida ah iska daa dadka kale inaysan isku mid ahayn waxa laga yaabaa inaad la kulantid dad maanta markii aad saragteen oo bari haddana iska hortimaadeen aan ku salaamin waxa laga yaabaa inaad aragtid dad markii danta ay ka leeyihiin kaliya ku soo xariiriyo inta kalena ku inkira waxa laga yaabaa inaad la kulantid dad muuqaalkii Soomaaliyeed leh laakiin kula dhaqan aan ahayn kugula diin aan ahayn kugula fikirna aan ahayn inaadan marka waalanin oo aadan isu malaynin inaad adu waalan tahay ama dad waalwaalan aad u timid aadan u arag laakiin aad u fahantid dadkii aad taqaanay dad ka duwan inay yihiin oo u baahan in sidii aad kula noolaan lahayd dhakartooda iyo dhibaatadooda iyo qaxarkoodana aad uga badbaadi lahayd in laga rabo falankeedii inaad gasho si hankaagii iyo hiigsigaagii iyo damacaagii iyo dooqaagii iyo noloshii aad raadinaysay aysan si fudud dad noocaas ah ama dad la mid ah oo laga yaabo adu fahan khaldan inaad ka qaadatay ay u horseed noqoto inaad waxaas oo dhan aad ku weydo aad baad u mahadsantihiin Miftaax Som Academy wuxuu ku hayaa barashada akhriska iyo qoraalka carruurta barashada quraanka kariimka ah tarbiyada islaamiga ah iyo hingaada dhammaan tacliintaas ayaa ah hab online ah oo aad si fudud adiga carruurtaaduba aad gurigiina wax uga baran kartaan adigoo uusan waqti ka lumin haddaba wixii faahfaahin ah ee intaas dheer fadlan kala xiriir wicid iyo WhatsApp-ka lambarka shaashada kaaga muuqda